u sameeyay dalkaasi Jarmalka halka xulkii qaran ee wadankiisana ay boorsooyinka la laabteen ciyaarihiina ayba uga dhamaatay waxaad sidoo kale maqli doontaan qaar ka mid ah jasiiradaha yaryar ee adduunka aan si fiican xataa magacyadooda loo aqoonin oo wareegyada labaad ee ciyaaraha ku soo baxaya waxaa jira goolal fara badan oo gilgilay garoomada kuwaasi oo dalalkii iyo ciyaartooydii dhaliyayba aan ku faaqidi doono isla ciyaarahan Saudi iyo Sahra sida aan sheegayba haddii aad arkaysaan waa ciyaarihii kuwooda ugu xiisaha badnaa soo dhawow bal ugu horreyntii habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay marka xigta taasi bal iga waran waxyaabihii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo xidigan asal ahaan ka soo jeeda dalkaasi Turkiga ee wacdaraha u dhigay ama u sameeyay wadanka Jarmalka sahroy horta ma la isdhihi karaa ciyaarahan adduunka kuwa xiga inaad noqon doonto wariyaha sportska saa bahasha isugu aadisay saa uga warhaysid saa ula socotid aadan uga helay marka saaxiibtinimada maxaa la dhihi jiray ma ogtahay biyo socdo biyo fadhiye qaadaan marka dhibaatada ay haysato waxaa qayb ka ah wax aanan micnaha baashan u lahayn ama xataa aan markii horeeto aan khabiir ku ahayn in ma aragtay aad saa igu riixaysay igu wada hadda aad iga dhaadhacsiisay inaan ka hadli karo soo fariisan karo soodo laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaan bal dhinacaana aan soo tijaabiyay khibradeyda wariyanimo dhanka sportskana waxaan rajaynaa ciyaaraha adduunka ee soo socda oo haddii aaba idmo inaan ka qayb qaadan doono annagoo markaasi live u tabin doono sahra sida aad sheegto ciyaarihii heerka xiiso badnaa ayay marayaan waana sida aad ka dhawaajiso xulka qaranka Turkiga oo rajo weyn laga lahaa inuu ciyaarahan adduunka meel fiican ay ka gaaraan oo ciyaartooy fara badan oo qaaradda Yurub horyaalada ugu sareeya ama kooxaha ugu caansan ay u dheelaan sida ciyaaryahanka ma aragtay Arda Güler oo u dheelanayay Real Madrid ciyaaryahanka Hakan Çalhanoğlu oo u dheelo kooxda Inter Milan Yıldız oo ma aragtay Juventus u dheela ayaa kamid ah ciyaartooyda horkacaysay xulka qaranka wadanka Turkiga laakiin nasiib darro ciyaartoodii hore si lama filaan Australia ayaa uga badisay sidaan hore uga dhawaajinay ciyaartii dambe ay la rabay inay wacdaro soo dhigaan oo Uruguay ay iska hor imaadeen ayaa hal gool oo qaybtii hore Uruguay dhalisay darteed ma aragtay ay bareejay waayeen ama ay ka badin waayeen waxaa taasi sii dheer Sahra sida aanu la socono in kooxda Paraguay ay red card ama rooso qaadatay bilowga qaybtii hore markii lagu daray daqiiqadihii dheeriga ahaa ciyaaryahanka Mikael Almiron ayaa waxaa la siiyay rooso waxaana lagu siiyay sharciga cusub ee FIFA 2026 ciyaaraha adduunka ee u soo bandhigta ee ah haddii ciyaartooy kale asagoo la hadlaya ama ay hadal dhaafaan uu afka daboosho u dhigmato rooso ciyaaryahankaasi ayaa is-iloobay afka ayuu dabooshay ciyaaryahanka Turkishka wuxuu u wacay garsoorihii kaamirada ayaa dib loo fiirsaday waxayna ugu dambeyn gaartay in halkaasi rooso lagu siiyo 45 daqiiqo ee dambo ereyada uu dhahay maxaa kamid ah markaas Sahra lama ogaan karo maadaama sababta loo diiday inuu afka daboosho haddii wax xumaan sheegay iyo haddii kaleba FIFA waxa ay leeyihiin dadku caan maaragtay xirfadooda ay tahay inay aqriyaan faruuraha qofka bini'aadanka waxa uu dhahay haddii ammaan noqoto haddii caay noqoto wax alaali waxa ay noqotaba lama ogolo adoo ciyaartooy kale la hadlay inay afka daboolato ciyaaryahankaasina waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay rooso ku qaato sharcigaas cusub ee FIFA ay keentay nasiib darro inkastoo ma aragtay 10 ciyaartooy ay ku dheelayeen xulka Paraguay oo ma aragtay tabartooda aad u yar tahay ayaa Turkishkii waxay awoodi waayeen inay gool ka dhaliyaan ama ay bareejeeyaan oo ay ka badiyaan ugu dambeyntiina hal iyo eberkii ay ku soo afjarmatay waxayna ka dhigmatay inay Uruguay noqdaan Turki kooxdii ugu horeysay ee ka hartay xataa ciyaarta dambe oo ugu dambeysay waxay la dheeli doonaan Mareykanka haddii ay badiyaan iyo haddii kaleetaba waa ay hareen maadaama Australia iyo Paraguay ay ayaga leeyihiin saddex dhibcood oo rajo ay ka leeyihiin inay noqdaan kooxdii soo labaysa Mareykanka iyo kooxdii ma aragtay soo saddexay karto Sahro Mareykanka waxa nasiib u yeesheen in ciyaartoodii Australia ay la dheelayeen 2 gool iyo eber ay kaga badiyaan qaybtii hore ciyaarta daqiiqadii ugu horeeyay ay Australiaanka difaacooda kubad u lahaa iska bixi waxa ay keentay inuu authority iska dhaliyo laakiin ciyaaryahanka Freeman ayaa qaybtii ma aragtay gool ay soo baaseen kubad uu soo baasay dhaxda dhexe ee Mareykanka u horseeday inuu goolka labaad dhaliyo ciyaaryahankan ayaa difaac ah ciyaaryahankan ma aragtay Freeman la dhaho waxa la dhihi jiray aabihii ayaa waxa ay noqotay muddo
sanado badan ka hor waxa uu dheeli jiray banooniga loo yaqaano Mareykanka Super Bowl-ka ama football-ka kaasi oo ku guuleystay sanadii 1996 la qaaday kooxda Green Bay Packers Super Bowl-ka oo lagu dheereeyay isla magaalada ay ka soo horjeedeen kooxda la yiraahdo Seattle Seahawks aabis ayaa caan ahaa jiray marka dad badan ma aysan aqoon jirin laakiin nasiib wanaag waxa uu u horseeday shalay xulka qaranka Mareykanka inay gruubkaasi ka soo baxaan oo u soo gudbaan wareegga xiga waxa uu yeeshay magac u gooniya asaga oo aan loo aqoonin magacii aabihii Morocco iyo Scotland ay dheeleen hal iyo eber xulka qaranka ka socda qaaradda Afrika Morocco ayaa ku guuleystay Ismaaciil Saberi ayaa goolka u dhaliyay inkastoo kooxdaasi weerar fiican aysan soo bandhigin oo ciyaartii Brazil ay la dhashay ciyaar lamida aysan dheelin laakiin Brazilna 3-0 waxay kaga badisay wadanka Haiti oo maaragtay wadan yar oo ka soo jeeda wadamada Latin America ciyaaryahanka u dheela naadiga Manchester United Matheus Cunha oo dheelay ciyaaryahanka macnaha koobkii adduunka ugu horeeyay ayaa 2 gool dhaliyay halka Vinicius Junior oo Real Madrid u dhashay goolka saddexaad uu dhaliyay taasina waxay u horseedaysaa Brazil iyo Morocco inay afar dhibcood ay ku hogaaminayaan sahar ciyaaraha kale xiisaha la waxa uu ahaa sida aad ka dhawaajisay xulka qaranka Jarmalka oo sanadii 2014 ciyaarihii Brazil lagu qabanayay ugu dambeysay inay groupka ka soo baxaan maanta fursad u helaan inay soo gudbaan 2000 maaragtay 18 ciyaarihii ka dhacay Ruushka ma aysan soo gudbin ciyaarihii Qatar ka dhacay inkastoo ay mudaharaadayo oo maaragtay qadariyiinta ku eedeynaya xuquuqul bini'aadanka darteed ay groupka ku hareen oo dad badan ay lahaayeen kubadda cagta iyo siyaasadda ma wada socdaan waa u qalmeen in maaragtay halkaasi ay ku haraan laakiin waxay u horseeday ciyaartii koowaad oo la socono Curaçao ayaa 7 gool halka ka soo badiyeen laakiin ciyaartii xiisaha badneed ay Ivory Coast oo ayadana gool wadata maxaan ku raahdaa gool iska hor imaadeen 2 gool hal ayanu ku guuleystay ciyaaryahanka Casey oo ah kabtanka Ivory Coast ayaa goolka koowaad u dhaliyay ilaa daqiiqadihii 80 iyo dhowr markay mareysay Sahra xulka qaranka Ivory Coast ayaa hogaaminayay ciyaaryahankani u dhashay sida aan sheegnay waalidkiisa wadanka Turkiga Deniz Undaf ayaa ma aragtay bedel lagu soo galiyay qaybtii labaad ee ciyaarta asaga ayaa u horseeday inuu goolka koowaad bareejeeyo ka labaadna dhaliyo sidaas darteedna Jarmalka 6 dhibcood oo nadiif ah maadaama ay wataan aysan u baahnayn in ciyaarta dambe hadii ay guuleystaan ama guul dareystaan ay u horseedayso inay maaragtay u soo baxaan ciyaaryahanka wuxuu noqonayaa ciyaaryahankii ugu horeeyay marka laga soo tago ciyaaryahankii hore weerarka Jarmalka Miroslav Klose oo noqday inuu goolal dhaliyo ciyaar maaragtay koobka adduunka ciyaartiisii ugu horeysay 3 gool ayuu dhaliyay ciyaaryahankani 2 gool asaga ayaa qaabeeyay oo u baasay taariikh adag ayuu soo maray Sahra sida aad hor u sheegtay waa sida aan rabay inaan hadda ku weydiiyo ninkan sheeko gaar oo cajiiba ayuu leeyahay waa soo galooti wadanku u ciyaaray wadan u dhashay maaha waalidiintiis way imaadeen shaqaale warshadeed ayuu noqday nolol adag ayuu soo maray asagoo xataa la riixayo ayuu xirfadiisa iyo hiwaayadiisa dhinaca ciyaaraha uu hawadaas geeyay oo maanta uu noqday xidig wadan dhan matalaya indhihii adduunka oo dhan ay arkayaan ku socosooda si fiican Sahra tababaraha xulka qaranka Jarmalka ayaa waxa uu ka jecel yahay ciyaaryahankani naadiga Arsenal weeraryahanka u dheelay Kai Havertz inuu ku bilaabo ciyaar kasto oo fursadda 100% uu isaga siiyo ciyaartii hore bedel ayuu ku soo geliyay gool ayuu dhaliyay ciyaartani bedel ayuu ku soo geliyay 2 gool ayuu dhaliyay waxa la leeyahay ciyaaryahankani waa ma aragtay sidaan hore u sheegay Miroslav Klose oo 2002 sidaan oo kale goolal u dhaliyay waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii labaad ee wadanka Jarmalka u dhasho maxaan ku raahdaa waxa uu ku shaqeey jiray oo ma aragtay meesha uu ka shaqeey jiray qaada jiray sanadii 2120 euro isbuucii Sahra waad garan kartaa waa aad ay u adag tahay waxa uu ka sheekeeyay noloshiisa waxa uu dhihi jiray subaxii 4 ama ma aragtay 10 saaxiibinimo ayaan kacaa si aan u soo shaqeeyo muddo 8 saacadood kadib waxaan aadaa ma aragtay halka kubadda cagta lagu tababaranayo maadaama asoo sanad jira 17 jir uu qoyskiisii ka tagay ma uusan awoodin oo kubadda cagta kama ay bixinin karin ma aragtay nolol maalmeedkiisa shaqadaasi wuxuu yiri aniga waxa iga ii ahayd oo kaliya inaan ma aragtay nolol maalmoodkayga aan ku maareeyo 2020kii
waxa uu ka tegay uu ku biiray koox ka dhisan horyaalka Belgiumka halkaasi ayaana ma aragtay wuxuu ku noqday laacib aad u ma aragtay 25 gool ayuu u dhaliyay kaasoo u horseeday in kooxda Brighton oo Ingiriiska ka dhisan oo koox caana oo ma aragtay lacag fiican u ogolaatay inay la soo wareegto laakiin nasiib darro 22 ciyaarood oo Premier League uu dheelay 5 gool ayuu dhaliyay sanadii 2020 iyo 2023 ugu dambeyn waxa uu ma aragtay si maxaan ku radaa deyn ahaan ugu soo wareegay naadiga Stuttgart 2024 ayayna waxa ay siiyeen heshiis joogto ah sanadii la soo dhaafay hadda dhamaaday Sahra waxa uu noqday ciyaaryahankii labaad ee ugu gool dhalinta badan horyaalka Jarmalka 19 gool ayuu dhaliyay halka qof ee ka sareeya waxa waa Harry Kane oo ma aragtay u dhashay Ingiriiska oo u dheelay naadiga Bayern Munich oo horyaalkaasi ku guuleysatay sidaas darteed ayaa u horseeday in looga waco oo ka mid noqdo ciyaartoyda xulka qaranka Jarmalka ciyaaraha adduunka uga qayb qaadan doonto marka dadaala waa gaara qiiq aan la qaban ayuu noqday wiilkii oo ma aragtay wuxuu ka soo dhaxbaxay kaliya ma aha qarankiisa adduunkii oo dhan in la arko hadda oo uu horyaalkii wadankaasi imaaday ciyaaraha adduunka lagu soo daro xulka qaran ee dalkaasi haddii aan ku daro xulka qaranka Jarmalka waxa uu dheelay ciyaartooy badan oo qaaradda wadanka Turkiga u dhashay sidaad ogtahay ma aragtay diaspora ama qurba joog badan oo reer Turkish ayaa ku nool wadankaasi 2014 markii ciyaaraha adduunka qaadayeen ciyaartooyda ugu fiicneed waxa kamid ahaa Mesut Ozil oo u dhashay waalidkiisa ay Turkish ahaayeen laakiin asaga ku dhashay Jarmalka oo halkaasi ku koray una horseeday ma aragtay kubad qaabeey qurux badan oo kubad fiican ay dheeli jireen ma aragtay halkaasi ugu dhaliyay waxa kale xulka qaranka Jarmalka u dheela sida amaano hore ka sheekeyneenay nin ahaajiro qaxooti wadanka Sierra Leone ma aragtay markiisii hore asalkiisii ka soo jeeda ee la dhaho Antonio Rudiger oo Champions League Chelsea iyo Real Madrid kula guuleystay marka kubadda cagta marka aad fiiriso Sahra waa marmarka qaar waa nasiib iyo dadaal laakiin Soomaali hore waxay u tiri dadaala waa gaaraa ugu dambeyn ciyaartooygan maanta waxa laga yaabaa tababarihii u sheegayay dhowr ciyaarood ka horo adiga waxa u qalantaa oo kaliya benjiga oo qaybta dambe inaad soo gashid waxa laga yaabaa inaadan goolal badan dhali kartid waxa laga yaabaa tababarayaal badan oo kooxo badan oo ma aragtay u soo dheeri u sheegi jireen inaadan ma aragtay u qalmin inuu caawa kulligood dhihi doono marka uu goolka dhaliyay Sahra halkaas ayuu qabtay yiri magacayga fiiriyo undaf ku qoran si ay u wada aqoonsadaan qofka uu yahay xitaa commentatorradii dadkii ciyaaraha faaqideynay dhalooyinka aan ka fiirsanaynay waxa ay dhahan magacaaga caalamka ayuu ku qoran yahay hadda uma baahna cid inaa u sheegtid hiba eeba ku siiya habeen la iskama qaadan maqli jira ninkaas waa gudbay si fiican waxa cajiib la ayadan oon jeclaan lahaa soodoy inaad bal wax yar nooga faahfaahiso xulki qaran ee dalka Turkiga waxay laalaabteen boorsooyinkoodii wayna ka niyad jabeen oo hadda ma jirto fursad kale oo ay ku sii ciyaari karaan ciyaarahan World Cup-ka ee hadda socda maxaa ugu wacan Sahra waxyaabaha ugu weyn ee lala yaabanaa ay ka mid noqotay in xulka qaranka groupka uu ku jirayna ma aha groupka oo dhimashada maanta oo ma aragtay Mareykanka waxa la islahaa horey gadaal ay u marayaan Australia banooni badan ma dheesho waxa la islahaa dhibcooda si fudud ay ma aragtay ku xandoofsan doonaan Paraguay oo Latin America ka socoto ciyaartoy aad sidaas ma aragtay caan u ama ma aragtay uu kubadda ma aragtay sida Faransiiska ama Jarmalka oo kala ma ahayn laakiin waxa la garan way halka isaga qabo waysay xulka qaranka Turkiga hadii ciyaartii koowaad Australia laga soo badiyay ciyaartii Uruguay oo 10 qof ay ku dheelayeen qaybta dambe maadaama nin roose laga siiyay ayba waa u mari weysa bahasha marka ciyaarta ugu dambeysay waxay la dheeri doonaan Mareykanka oo ma aragtay groupka ka soo baxay oo wadankiisa joogo bal wayna arki doonaa hadii ma aragtay ay macsalaamo fiican ka tagi doonaan iyo hadii kalaba Mareykankuna si lama filaana ayay waxay ugu soo gudbeen qaybaha dambe ciyaarta marka sidee bay taasina u siisay fursad in ay u soo gudbi karaan kooxdan xulka qaran ee dalka Mareykanku si lama filaana ay qaybaha dambe ciyaaraha ay gali doonaan oo hadda aysan qoys joogin ayagana Sahra lama filaan lama dhihi karo maadaama groupka kow Turkiga ayaa ku soo baxaya leeslaha Mareykan ayaa ku xogsan doono Australia iyo Paraguay qofna isma lahayn waxay ka badin doonaan Turkiga
ama maraykanka labadiba waa uu ka badiyey sidaas darteed ayuu dhibciyihii ugu horeeyey helay hadda ciyaartii Australia ee la dheelayeen maraykanka Bruni aad sida u qurxan ma uusan dheelin laakiin dadka qaar waxay ku kaftamaan Sahra waxay isleeyihiin Australia Paraguay ma rabaan inay maraykanka badiyaan haday ka badiyaan ama ma aragtay tarxiil loo diraa qof walba naftiisa ayuu u baqaa oo taageerayaasha armay ku soo farda baxaan ay isleeyahay laakiin maraykanka inuu soo baxaa gruubkan saadaarinta waa ku jirtay laakiin Turkiga ayaa waxay noqotay mucjisadii ugu horeeyay maaragtay gruubyada lagu jiro waxay noqotay in xulka qaranka Ecuador oo ciyaaraha asagana maaragtay sida Turkishka kaleeto haddii ciyaarta dambe dheeranay haddii kaleeto ay maaragtay boorsooyinkooda xirxirteen waxay 0-0 la galeen oo dhibicdii ugu horeysay ciyaaraha adduunka taariikhiyan aruursata xalay xulka qaranka Curaçao qaaradda Latin America ka soo jeedo ciyaartii koowaad sida aanu la soconno 7 gool iyo hal Jarmalku uu feeraha kaga soo dhuftay nimankan wadankooda aad looma yaqaan haddaan ku dhaho ka waran waa jasiirad yar dad fara badan inaysan aqoon ama ku dhawaaqi karin laga yaabaa wadanka ay ka socdaan ciyaartooydaasi si fiican sidaas darteeda goolkii ay Jarmalka ka dhaliyeen waxay noqotay goolkii ugu horeeyay ciyaaro adduun ay dhaliyaan marka maanta waxa uu suurto gashay ma aragtay inay dhibicdii ugu horeysay ay helaan goolhayahooda oo 37 sano jira oo u dheelay naadiga FC Miami oo wadanka Mareykanka ka dhashay ma aragtay ka dheela ayaa 15 gool oo u qalmo kubad u qalanta goolal Sahra save garay oo badbaadiyay kooxdiisa u diiday in goolkaasi laga dhaliyo sidaa marka waxay u horseeday in Jarmalka groupka ku soo baxo Ivory Coast ay ayaga ku xigaan ay leeyihiin 3 dhibcood Curaçao ay dhibic leedahay marka nasiibkooda ayay sugan doonaan leesma lahayn Curaçao ayaa ma aragtay Ecuador bareejo la gali doonto marka sidii aan uga sheekaynay xulka qaranka Cape Verde oo ayadana bareejo la gashay maxaan ku radaa Spain waxyaabo badan ayaan la saadaalinayn oo sanadani dhacay sidoo kaleeto ciyaarahan adduunka waxay noqon doonaan ciyaarihi adduunka ugu horeeyay ee ma aragtay 100 gool la dhaliyo si dhaqso leh marka ay ka soo wareegtay 68 sano hadda inta ciyaar la dheeyay 100 gool ayaa la dheeyay dhowrka bariyo hadda ciyaarta ay socoto waxay ka dhigan tahay in 100 gool durbaba la dhaliyay si fiican waana ciyaarihi adduunka ugu horeeyay muddo 68 sano 100 gool sinaan lagu gaaro oo fudaydka ah waa tahay waa badaalayba bacada la iscabsiiyay meeshan waa u jeedaa waa tahay waxaa jirta kooxdii inay ciyaarta ayaguna Sweden ee wiilka Soomaaliyeed uu ka mid ahaa kooxdaasi ciyaar noocee ayay soo bandhigeen Sahra sida aan la socoto xulka qaranka Sweden waxa ay isku group yihiin xulka qaranka Holland Tunisia iyo Japan sida aanu la soconno ciyaartii koowaad Hollandeeska bareejo 2-2 waxay la galeen Japan Tunisiana waxa ay si qurux badan uga soo badisay 4 gool ay u soo dhiibtay maxaan ku radaa Sweden iyo Tunisia Sweden ayaa ku soo badisay oo ciyaaryahanka ciyaari ayaa ma aragtay 2 gool u dhaliyay oo ma aragtay waalidkiisa ay ka imaadeen wadanka Tunisia oo sida ma aragtay Taha Ali wiilka Soomaaliyeed oo ma aragtay qaxootinimo wadankaasi ay ku tageen ciyaarta inteedii koowaad ayaaba ma aragtay goolasha ugu badanaay xulanka qaranka hore Hollandeeska dhaliyeen weeraryahanka naadiga Sunderland ee horyaalka Ingiriiska Broby ayaa ma aragtay 2 gool dhaliyay ciyaaryahanka Liverpool ma aragtay Cody Gakpo ayaa 2 gool dhaliyay ciyaaryahanka West Ham United Summerfield ayaa asagana gool dhaliyay 5 gool ee Hollandeeska dhaliyeen ciyaartooyda u dhalisay waxa ay horyaalka Ingiriiska kooxa ka tirsan ay u dheelaan marka waxa la isleeyahay horyaalka Ingiriiska ciyaartooydiisa aad ay ku badan ma aragtay koobkan adduunka uga faa'iideysteen Swedishka 1 gool ayay dhaliyeen waxaana u dhaliyay Antonia Elanga oo asagana sidoo kale horyaalka Ingiriiska ka dheelo naadiga Newcastle u dheelo saa sheegnay Taha Ali ku dhawaad daqiiqadihii 75aad kadib ayaa ciyaarta la soo galiyay hal banooni oo aad u qurux badan ayuu sameeyay oo u baasay Alexander Isak kaasi oo marka kubaddi marka uu aad u baasay goolahayaha ma aragtay uu ka badbaadiyay marka waxa uu noqon doonaa qofkii ma aragtay Soomaaliyeed oo Soomaalinimada ku faanaya inuu kubadda cagta ama ciyaari adduunka ka qayb qaato wiil Soomaaliyeed kuwa badan ayaan sheegnay laakiin asaga waa waalidkiisa ayaa Soomaaliya 100% ah marka asagana waxa la isleeyahay dhiig ahaan waa 100% laakiin passport Swedish ayuu wataa sidaasi ayaan u horseetay inuu xulka qaranka Sweden u matalo Sahra
waxba kama dhigna marka Soomaalinimadiisa muhiima qofka aad baad u mahadsantahay Soodo Xuseen sidaas aad sheegtay sahra aan ku daray ciyaar xiiso badan ayaa dhici doona haddii ilaahay yira oo gruubyo badan ayaa maalin walba la kala bixi doonaa Spain oo aan ka sheekeynay Cape Verde bareejo la gashay oo goolhayooda 40 sano jiro u horseeday inuu ma aragtay 7 banooni ka badbaadiyo oo gool noqonaheed ayaa ma aragtay ugu dambeyn codsi ay shacabka sameeyeen codsi iyo dadaal ay sameeyeen ugu dambeyn waxa loo ogolaaday sidaan hore u sheegnay in hooyadii fiisi loo ogolaado oo ay imaado oo ay ma aragtay fiirsan doonaa ciyaarta ay ma aragtay dheeli doonaan oo Uruguay iska hor imaan doonaan haddii baidmo Spain iyo Saudi Arabia ayaa dheeli doono Belgium waxay is arki doonaan xulka qaranka ee taageeraysa ee Iran haddii baid masahro Belgiumka iyo Masaaridii ayaa bareejo hal iyo hal soo wada galisaan la socono marka waa la arki doonaa ciyaar xiiso badan ayay noqon doontaa wadanka Belgiumka waxaa lagu tiriyaa wadamada awood u leh inay qaadi karaan ciyaaraha adduunka laakiin maadaama qaab ciyaarad fiican ciyaartooda ay soo bandhigin ayagana lama dhayalsan karo Iran bareejo ayay soo gashay sida aanu la socono oo ma aragtay New Zealand ayay soo wada galeen New Zealand iyo Egypt ama Masar ayaa ayagana is arki doona haddii ay baydmo marka ciyaarahaas xiisaha badan leh ayaa ayagana biri gruubyada qaar waa lagu kala bixi doonaa waa tahay ciyaarahaas xiisaha badan saysa idin dhaafin subscribe dhaha channelkeena la socda qaybaha kala gedisan ee warbaahinteena online-ka ah si aad u maqashaan ciyaarihii